laakiin saasaan badan oo muujinaysa inay tallaabadaas raaci doontaan ay muuqdaan waxay samaynaya diyuuradaha iyo dadka diyuuradaha ayay lacagta ku kordhinaysa diyuuradaha lacagta lagu kordhinaa diyuuradaha la dejiyo rakaabka laga dejiyo lagu raro baa la yidhaha grand pound ay diyuurada isticmaalaan waxyaabahaas ayaa lacagtooda lagu kordhinaa waa waxaas waxa diyuurada shirkada la siiyey shaqada garoonka laga qabtana waxaa loo kala qaybiyaa qaybaha terminalka passengerka shaqada loo qabanayo oo screeningka iyo targetka screeningka lagu soo samaynaayay iyo diyuurada oo lagu raraayo oo nimankan ay yidhahdeen airside-ka oo dhinaca diyuurada ay joogtaan diyuurada la rabo marka qiimahaasaa lagu kordhinaa markii lagu kordhiyo shirkadaha diyuuradaha soomaaliga waxay samaynayaan marka iyagoo waayo faa'iido ay samayn jireen ayaa hoos u dhac ku imaanaya kharashka badan ay bixinayaan daraaddeed kadib ayagu waa fikirayaan waxay samaynayaan tikidada ay dadka passengerka soomaalida ka gadan ayay qiimihii ku darayaan markay taa ku daraan dadka soomaalida way fikirayaan iyagana waxay leeyihin jeebkoodiyaa la qaatay waxay leeyihin xageena la ka saamay diyuuradda tikidkii qaali ka dhigtay okay safarkeena aan laba laba isugu darsana marka diyuuradihii dadkii raaci jiray tiradoodii ayaa hoos u dhac ku imaanaya maadaama ay dadkii laba labo ay si isku darsadaan nin ay dirsanayaan marka taas markay timaado diyuuradii waxa ku dhacaysa dhaqaalihii soo geli jiro oo maadaama dadkii yaraa inuu hoos u dhac ku yimaado way fikiraysa xagee laiga saameeyay leedahay xagee laiga saameeya diyuuradii markii tiraa waxay leedahay qoladan airportka lacagtii ku kordhisay ana tikidadaas ku kordhisay dadkii saameysay passengerkii isaas hoos ugu dhacay okay meel aan lacagtu jaban tahay oo aan lacag lajajilayni airportka ka raqiisan oo aan ku shaqaysan kara waa inaan helaa marka sheekadu way u laabanaysaa number conton iyo isla iyo airportada ay intaysa airportka usoo guuray inay shirkada diyuuradaha u laabtaan taas haddana waxay soo ayagu kusoo kordhinaysaa shirkadaha diyuuradaha koobti ama kharash ah inay muqdisho passengerkii ka qaadaan ay number conton geeyaan marka iyagii ayagoo arrintaa intay la circiirayaan nimankii airportka SK way fikirayaan waayo diyuurada ayay leeyihiin oo ciraaq ka shaqeeya afghanistan ka shaqeeya diyuuradooday basu raadinayaan war dakhligeena hoos u dhacay xagee ka kabnaa waxaan ka kabaynaa inaan meel kaloo il dhaqaale aan raadino ishii dhaqaale waxay noqonaysaa marka oo muuqan kartaa inay diyuuradoodii ay keenaan airportka muqdisho bes uga dhigaan kadibna ay boortkii diyuuradii ka baxeen ay buuxiyaan oo ay tikida gadaan ayaguna dadkii passengerkii qaadaan taas waxay keenaysaa marka tartan xoogan oo dhex yimaada shirkadihii diyuuradaha iyo shirkadan cusub ee SK ee hadda abuuratay taas markay timaado hadda mustaqbalka dhow tikidada qiimaheedu hoos ayuu dhacayaa nimankan SK diyuuradooda shaqaalihii ground handlinka waxaa la yidhaha oo passengerka checkinka lagu samaynaa iyo xaritaanka diyuuradda shaqaaladoodii qabana marka lacag jaban ay diyuuradoodii ku siinayaan taasna waxay sii siinaysaa waxaan afka qalaad lagu yidhaha competitive advantage taas marka iyo airbooradiyo fogaantii labadaas ay isticmaalayaan tikidadii qiimo aada u jaban ay ku gadayaan taas waxay keenaysaa in diyuuradaha soomaalida ay isticmaasho la waayo ayna sidaas hawada uga baxaan markay hawada ka baxaan oo ay SK sida airportka ay keligeed u haysato hawada Soomaaliya inay airline business ay keligeed samayso markay ku soo harto qiimihii meeshay doontaa haddana gelinaysaa oo waxaa dhalanaya haddana waxaa la yidhaha monopoly power ayaa haddana meesha uga dhalanayo keligeed hawadi ku noqonaysaa marka waxaa hadda xusid mudan taas waa xagga tan koowaad ma loo baahan yahay SK masar looma baahna airportka muqdisho xilligan ma looga baahan yahay masar looma baahna markaad fiiriso airboorada caalamkoo dhan oo sida Heathrow iyo Vienna iyo airport kasta markaad fiiriso waxa waaye wuxuu soo maray xilli uu ka guuray gacantii dowladda uu u guuray gacan oo dad private oo ganacsata uu guuray marka airportkii daalo iyo waxaa isticmaala iyo super iyo African Airlines haddii aa xitaa tiraa passenger serviceka caadiga oo dowladda iska talaba meel kasta ayadoo free iska taalaadaad tira ugu xirto wax ciriiriya ma jiro passengerkii si smoothly isaga dejinaan smoothly isugu raraan taankooday ku kacaan ciriiri oo wadamadan oo airportada diisiga waxaa laga isticmaalaa waxa la yidhaha slot allocation qayb ayaa dowladda meel loo dhigaya waxaa leeyahay مثلا دال انا soo socota wada Heathrow waxa ku leedahay qaybta timeka ilaa timeka marka Soomaaliya kuma jira waxa yar kaliya imaanayso oo wiigi laba mar imaanayso ama hal mar imaanayso marka baahi hadda airportka loo wareejiyo ma jirto dabcan hadda shirkadan SKA waa howl gashaa sida muuqata warbixintiina waxa ku xusan in laba mar heshiis la galay oo dawladdu ay la gashay lacag ayaa ku xusan oo kala hor booskeeda lacagtaas XX lagu qal marka la qanciyo wasiirkii maaliyadda cadada lacagtaasi ka warana sidee baad ku heshay inteena gaaraysa
ليه عدد العكتارسي horta waa 1 milyan waxaa dhacday heshiisku wuxuu soo maray marxalado fara badan marxaladda ugu horeysa waxay ahayd waxaa saxiixay ninka la yidhaha maxamed dablan pilot oo ah maareeyaha hay-adda boolista hawada marka ninkaas markuu saxiixay waxay ahayd 28 bishii lixaad 2010 kadib waxaa dhacay in cumar cabdirashiid oo warqad qoray uu yiri heshiiskaas wuu jiraa waana sax uu yiri haddana waxaa cabasho keenay wasiirka maaliyadda ninka la yidhaha xalane wuxuu soo keenay qodobo fara badan soo sheegay waxaa kamid ahaa wuxuu yidhi dawladda oo maaragtay waktigeedii wax hal sano kaliya uu ka dhiman yahay ma geli kartaa heshiis 10 sano ah midda labaad wuxuu soo qaatay heshiiska ma soo marin janalkii oo sharciga ahaa oo ahayd in laga rajistar gareeyo wasaaradda arrimaha dibadda ama wasaaradda oo qorsheynta qaranka iyo xiriirka caalamiga midday doontaba ha noqotee laga rajistar gareeyo kadibna baarlamaanku ka doodo kadib meeshaas ay marto saxiix ay u gudubto markaa marka midda saddexaad wuxuu leeyahay qaybsiga dakhliga aeroboortka soo gala haddana mid cadaalad ku dhisan ma aha haddana wuxuu sii qaadanayaa lacagta 1 milyan ah inuu soo cadeeyo wuxuu sii raacinayaa in lacagtaas dakhliga oo x lagu qoray in lasoo cadeeyo codsaday kadib markii lasoo cadeeyo haddana wuxuu kusii doonayaa lacagtaas 1 milyan kama muuqato accountkii dawladda meeshii marta ayuu haddana weydiinaya haddaba waxaa xusid mudan xilliga uu xalana warqada qoraya waa 12 bishii tobnaad 2010 waxaa dhacday horta heshiiskii waa lasoo cadeeyay 1 milyan oo lagu soo qoray dakhligii waa sidiisii wixii kala dhaway sidoodii waxaa dhacday xalane ayadoo wuxuu ka cabanayay oo dhan qaybsigii wax kasta ay sidii yihiin keliya lasoo cadeeyey lacagtii x ku qoreyd oo 1 milyan booskeedii lagu soo qoray dawladda horumaris u qaadatay lagu soo qoray in uu heshiiskiisa yahay marka kulay dad ah waxunbaa lagu qanciyey ma dhihi karna waxaas alla yaqaan laakiin waxunbaa lagu qanciyey marka heshiiska noocii maray iyo heerarka uu maray markaas fiiriso iyo iska dabanoqnoqodka kaas fiiriso waxaad moodaa in xoogaa musuqmaasuq sidana meeshu wax ugu jira oo un la kala doonayay midda kale heshiiska waa 1 milyan shirkaddu way cadaysay waxay ku bixisay 1 milyan waxaa u bixinay yidhaahdeen si aan u helno heshiiskan ayaan ku bixinay marka akhiyo heerarkaas ayuu heshiisku soo maray tahay jamaal su-aasha ugu dambaysa qodobadiina waxaa ku xusan in aad hadda il gaara ku haysaan waqtiyada soo dhowna aad la faguri doontaan arrimo kale oo heshiiska la xiriira waxyaabaha la idinka filan kara ee waqtiyada soo aadan aad hadda qorista ku haysaan iyo xogta raadinta maxaa kamid ah horta sharciyadu aad u badan yihiin ilaa iyo 12 qodob ay ahaayeen marka sharciyada laftooda ayaa waxay u baahan yihiin in mid loo la faguro marka annaga waxaan ku talagelaynaa waxay tahay in sida aan soo sheegnaba maadaama waqtigu yar yahay maadaama maxay ahayd qoraal aan lagu soo koobi karin waxaan ku talagelaynaa inaan buug ayaan wadnaa oo aan rabno inaan ka qorno oo ku saabsan shirkada iyo waxyaalaha Soomaaliya ka dhacaya marka kan ugu yaabka badan oo hadda aan kuu sheega waxay tahay heshiiska waa la galay heshiiskii ha la gale maxay ahayd heshiiska waxa weeye heshiis marka la galo wax walba waxay u baahan yihiin in la cadeeyo wax walba waxay u baahan yihiin in la cadeeyo laakiin haddii heshiiska wax kasta oo dulkii ku jira heshiiska wuxuu ka dhigayaa mid aan heshiiskaas aan soconayn ayuu ka dhigayaa tagale heshiiska waxaa kale uu sheegayaa haddii maxay ahayd confidentiality hadda waa lagu xadgudbay karaa heshiiska maaha in cid saddexaad ay ogaato maantana heshiiskii dee qof kasta ayaa haysta banaanku yaalaa waxay ugu talagaleen ayagu inay qariyaan oo in cid kale aysan ogaanin talayaabka leh qodobka 12 haddaan kuusii sheego waxay tahay waxaa ku qoran in heshiiska haddii ay dowladda Soomaaliya iyo shirkadda ay wax isku qabsadaan heshiiskan in lagu xukmin doono sharciga ay Dubai in lagu xukmin doono marka sharciga Dubai in lagu xukmin doono marka waxa la yaab leh hawshii waxay ka dhacaysaa Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa meesha laga qabanay waxay jirta dowladda Soomaaliyeed haddana haddii maxay shirkadda ay qabsadaan dowladdu waxay taa كده
waxay aadayaan sharciga dubay aadeen meesha ayaa lagu soo xukmin doonaa marka taas waa arrin la yaab leh iyo waxyaalo kale badan ayaa jiro oo aad naga filanaysiin oo ku saabsan heshiiska iyadoo aan dhinacyo badan ka eegi doono marka intaasaan kusoo koobi lahaa وحاجة كويس وحي هيان جمال قاسم مرسل إيو أحمد معلن حسن أو حكبرت الجامعة ذكية لدرك إنجليز وإحنا أنكوي دي وبحنا قصة في بحضي